munaasabadani ayaa ahayd mid lagu taageerayay xisbiga Samadoon oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. waxaa munaasabada soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo maaliyadda ee xisbiga Samadoon, Shariif Cabdullaahi Shariif Abuukar iyo Sheekh Cabdullaahi Axmed Cali Sheekh Cabdullaahi Daada, odayaal dhalinyaro, haween, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. intii ay socotay munaasabada ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabada oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in si buuxda ay u taageersan yihiin xisbiga Samadoon kuna garab istaagan yihiin howlaha uu ka wada xisbiga dalka, isla markaana ka bulsho ahaan ay ku garab taagnaan doonaan xisbiga kaalin kasta oo bulsho ahaan kaga aadan. xisbiga Samadoon أنا هذا الكيك واقابني هاي هذا البضن وهذا أنا ماشي هذا مرك هذا إيه فرن وهذا أن وينه هذا أن شيء جاي مجرته Samadoon waa taageersanahay aad baan u taageersanahay. waxaa yeelay Samadoon waa xisbiga naga saari lahaa qabiilkan ibtileeyay oo 30 sano nan burburiyay qaxooti naga dhigay 20 sano qaxooti ah 30 sano 20 sano dibid qaxooti ah 20 sano Kenya qaxootigeeda wadankeena 40 sano marka 40 sano wax yar aan noo dhiman. innaga marka waxa la naga rabaa haddaan nahay dadweynihii maaragtay xisbiga markaa Samadoon waa inaan garab u noqono, dadka soo dhaweyno, soo dunmo, xisbiga lagu soo xidho, xisbigu dad badan yeesho, dhaqaale u yeesho. haddii ilaahay ilaa meel walbaba taa la naga rabaa inaga taas ah waa inaan garab siino. taasay noqonaa ama haween ha noqdaan ama rag ha noqdaan waa inaan xisbiga ku soo xidhootay. xisbigu waa xisbi saasa masaalixda diinta ayuu ka shaqeynaya, masaalixda dadka ka shaqeynaya, masaalixda wadanka ka shaqeynaya, dad fiican baa hogaaminaya. ku soo dhawow waa saan la yiraahdo weeyaan. anoo ku hadlaya gabdhaha sharafta leh oo xafladan qaaliga ka soo qayb galay afkooda, waan taageeraynaa xisbiga, waana soo dhaweynaynaa qowlan iyo ficlanba. horta dhammaan waxaan idinku salaamahayaa assalaamu calaykum. aad baan ugu faraxsanahay gabdhaha ka soo qayb galay. waxaad moodaa anigu waxaan ahaa dawladdii hore kacaankii 21 habeen ku dhashay, saan baan u taagnaa. wiilashan mayna arag dawladnimo iyo sharaf dawladnimo ay leedahay. annagu waxaanu la kowsanay kacaankii habeen ku dhacayna waan la dhacnay. macaana dawladnimadu, macaana nabaddu, macaana haddii rabbi xugma hayay markii aad dalkaaga iyo dadkaadaba aad haysata macaana sharaf badana. maantana haddii 30 sano ka bacdi waxaasaa dhacay. shalay waxay ahayd 21kii Oktoobar. aad baan u xasuusanahay saddex cisho ka hor baanu abaabuli jirnay kacaankii. marka Samadoon inuu kacaankii noqdaanu doonaynaa mooyaane inuu mid duurka lala galo uu noqdo ma rabno. gabar iyo dumarna ay ka helaan. wiilasha aqoonyahanada dhammaantood waxaan ku salaamay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam ka bacdeed halkan waxaan u soo istaagay horta fasti waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala ee halkan kulansiiyay ee isku kaana keenay annagoo nabad ah. midda labaad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xisbiga. waan jecelahay inaan ka qayb qaato xisbiyada iyo waxaas inaan siin bari ku xirnaado waan iska jecelahay, laakiin ma arkin waaga mid aan ku biiro. sababtuna waxay tahay xisbiyada hadda jira waa xisbiya ay leeyihiin shakhsiyaad ma arkin aniga xisbi qaran ama Soomaali ay u midaysan tahay. marka waxaan leeyahay xisbigan uu ka duwan yahay xisbiyadii hore oo la arki jiray. waxyaalaha uga duwan yahay waxaa ka mid ah Soomaali oo dhan waa ka midaysan tahay. midda labaad waxaa hogaaminaya dad ehel u ah culimo oo diinka. bacda salaam ilaahay baa mahad iska leh meeshaan xafladan barakaysan ugu soo kulmiyey iyo dadkii soo awaabuleen oo dhalinyaradii ayaan mahad kale u celinaa. kadib waxaan leeyahay arrintan waa arrin aad u wanaagsan in la isku xirnaado oo dadkii muslimiinta isku xirnaadaan aad u muhiim ah. laakiin walakin Allah alafa baynahum,
ilaahay baa isku dumay taas waxaan ku gaari karnaa inaad dadka xisbiga wado dabeecad wanaagsan ay la imaadaan nabiga ay ku dayaan calayhi salaatu wasalaam ay qalbigooda ay geliyaan ay ku xiraan himidooda ay noqoto si islaamka isugu keeni lahaa geesta kale Shariif Cabdullaahi Shariif Abuukar oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee xisbiga Samadoon iyo Sheekh Cabdullaahi Axmed Cali Sheekh Cabdullaahi Daada oo isna ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee xisbiga Samadoon oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa uga mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi soo dhaweynta ay xisbiga u sameeyeen waxa ayna dhankooda sheegeen in ka xisbi ahaan ay garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba kagana warqabi doonaan meel kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan higsigan doon Allah noo guuleeyo waxaan sheegayno waa iska waxaad moodaa waxa la yiraahdo qalbiga wax ku soo dhaca waay laakiin haddii ficil lagu daro waa la guuleysan doonaa insha Allah waan guuleysanaynaa caawa waxaan aad ugu faraxsanahay xisbiga Samadoon inuu ka hergelay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wax yaro xoogaa kaftan haddaan ku daro oo gabdhaha aan ula jeedo walaalahaya gudoomiyaha Dr. Cabdinuur baa maalin la soo hadlay wuxuu yiri waxaa noo timid xafiiska soo booqanayay guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha markaasaa la yiri gabdhaha loo baahan yahay in la joogaan gabdho fara badan u yeerno yiri gabdhii haddaan u yeernay mid walba wajiga qabsato dhaa dadka magto iska imtixaan marka gabdhuhu waa xubinta koowaad baa la dhihi karaa ama labaad ee laga doonayo badbaadada dalka markaasaa waxaan ku yiri buu yiri gabdhaha ma soo afduubteen maxay wajiga u qarsanayaan marka waxaan leeyahay gabdhaha anaga waa mahadsan yihiin sida sharafta la iga soo qayb qaateen xafladan iyo sida ay u soo dhaweeyeen xisbiga idinka iska leh hooyo haddayna guriga hagaajinin aabba kaliya wax ma hagaajin karo caruurta waxaa tarbiyeeya oo wax u tara oo edibtooda bar waa hooyo marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala iskugu kaya keenay maxfalkan noona suurtageliyey inaan iskugu nimaano halkan marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan marti sharafta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa taageerayaasha xisbiga Samadoon ee soo agaasimay xafladan ayagoo runtii muujiyay dareenkoodii si ay ula wadaagaan gebi ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta badanna waxay ku soo dhammaataa qoraal laakiin xisbiga Samadoon haddii Ilaahay wuxuu doonayaa qoraaladaas oo dhan inuu u bedelo si ficil ah waxaan rabaa kaliya munaasabadan inaan in yar ka cadeeyo dhowr qaybood ayay iskugu jirtaa marka ugu horeysa waxa weeye inaan shaacino isku xirayaasha xisbiga Samadoon ee caasimadda dalka Kenya qaybta joogta iyo qaybta ku sugan wadanka Soomaaliya dadkii isku xiri lahaa inaan halkan ka shaacino caawa idin sheegno aanan idin mahadcelino runtii waqtigiina qaaliga ah aad noo soo horteen rag iyo dumarba waxaan rabaa inaan sheego insha Allah taala Sheekh Maxamed Ibrahim Ducaale inuu ka mid yahay taageerayaasha xisbiga odayaashiisana ay u garteen inuu noqdo isku xiraha xisbiga Soomaaliya qaybtiisa iyo qaybta caasimadda dalka Kenya ee Nairobi Sheekh Maxamed Ibrahim insha Allah taala waxaa sidoo kale aad arki doontaan haddii Ilaahay idmo Sheekh Daacayso Sheekh Maxamed ayadana waxay noo qaabilsan tahay dhinaca dumarka ayadana waxaan ugu talagalnay ayadana inay noo qaabisho insha Allah dhinaca dumarka isku xiraha xisbiga Samadoon qaybtiisa Soomaaliya ee qaybta wadanka Kenya waxaan rabaa munaasabadan runtii waxaa nagala soo qayb galay ajilo waaweyn oo runtii aan lagu soo koobi karin halkan magacyadoodii Mustaf Maxamed Xuseen Mustaf Meeleye Tabiya TV caasimadda wadanka Kenya ee Nairobi